gudaheena dimuqraadi baynu nahay xisbiyaynu nahay muranka ugu jiraya doodu way jiraysaa laakiin waxaynu u baahannahay inaynu iska waarino waxa la yidhaha waargartaada sheego oo turxaan la'aan sheego markaan anigu madaxweynaha ahay qaranka udhexeeya ee dardaaranka qura bixinaya waxa weeye aanu doodno sharciga aan isku qabsanno danta aan isku qabsanno laakiin doodaada iyo murankaaga turxaan la'aan ee la'aan sheego si gobonimo waashi maalmahan waxaa maqlaysaa waxan badan oo xisbiyada ka socday mucaaridka gaar ahaan xisbiga wadani wuxuu ku dacwooday sharcigii baa la jabiyey raaci mayno go-aanka baarlamaanka soo baxay garabtii waa sharcigii baa laga booday madaxweynaha marorsaday gartaa ma ogolin waa caadi qofku hadduu wax todo inuu sheegto laba qodob bay sheegteen mid waxay yidhahdeen komishanka cusub la doortay la shaqayn mayno waayo madaxweynuhu wuxuu jabiyey heshiiskii xisbiyada xalaal iftiin baa la qashaa xisbiyada waa heshiin haddii qodobka ay guddooda waxay yidhahdeen waxay xisbiyadu ku heshiiyeen inaan xubnihii hore ee komishanka lagu soo celin kuwa damba laga dhigin haddii qodobkaasoo qoraala ay hayaan oo lagu heshiiyey anigu mana saxiixin qodobkaa mana ogi kuman inaan heshiinin oo ma jiraan leeyahay hadday hayaan ummadda hoos soo bandhigeen inaanu qodobkaa ku heshiiyeyn annaga ka daran haddaanu jirin oo aan laga heshiinin dee wax wanaagsan ummadda markaa doodaysa wax runa u sheeg qodobkaa laguma heshiin waxaa lagu heshiiyey in la soo doorto 7 xubnood cusub sababta loogu dari waayo kuwii hore ayaa lagu soo celinaa waa sharci aanaan dhaafi karin haddaanu xisbiyada nahay ayaa yaalla xeerka komishanka qodobkiisa 12aad faqradda 4aad waxay leedahay muddada komishanku waa 5 sannadood waana loo cusboonaysiin karaa markuu waqtigu ka dhammaado xubnaha haddii loo baahdo yaa saxeexay waxaa saxeexay mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi guddoomiyaha xisbiga qaranka wadani guddoomiyaheenii hore oo baarlamaanka oo haddana ah xubin ka tirsan guddida guurtida waa ixtiraamaynaa saxiixiisi waa la raacaya isagaa saxeexay mudane guddoomiye cabdiraxmaan ummadda u soo bandhig labadaa qodob hadday wax ka jiraan wax ka soo celi ee turxaan la'aan waayo xalaal iftiin baa la qashaa in dadka la jahwareeriye maha qodobka waa baxay qodobka labaad waxa uu yidhi xubintaa annagaa diidan haddaanu dari nahay lagu dari maayo ama xubnaha haddii lagu darana doorashada geli mayno waxa daba socotoo lagu eedeeyey madaxweynuhu taladu murarsadaa waa kalitalis tala ma ogola bal amuurta ilaahay haddana labadaa qodob isu keeneeg sharcigii uu isagu saxeexay komishanka qodobka 12aad waxay ahayd laba waxa soo jeedinaya guurtida mid waxa soo jeedinaya xisbiga wadani midna wicid saddexna madaxweynaha cid waliba way soo qortay kuweedii midna arrintiisa kuwaan faragelin xisbiga wadani ku keenay waan gudbiyey wicid ku keenay waan gudbiyey guurta labadoodina waan gudbiyey saddexdii aniga ayna noqotana waan ku daray waxaa jira shuruudo lagu qiyaaso haddaan qaldamo anugu oona ma u bareero anoo danteeda riixanaya ama bini'aad baan qaldamaba waxa iga dambeeya 2 isbaaro guddida hoose baarlamaanka iyo goloweynaha baarlamaanka oo 28 qof waa la gudbiyey intiiba waa mareen waa doodeen wadani inay arrintaasi qalad tahay guddidii baarlamaanka way sii daysay baarlamaankiina wuu codeeyey yeeli maynu wadani yidhi dictaatoriyadda ka weyn baarlamaanka yeeli maayo xaggee lagu arkay dee cabdiraxmaan yaa ka filayay inuu wanaagsan oo shibir wahay qolada jihadiya wataa laga filayay mudane cabdiraxmaan adoo guddoomiyey baarlamaanka ugu weynaa saxeexada ee dalka 10 sano sharciga u saxeexayay adoo guddoomiyaha xisbiga wadaniga qaran ah adoo xildhibaan guurta sharafeedo milkiye maamus ku leh dee bal arrintaa ka fiirsay yeeli maayo baarlamaanka waa arrin adag war baridina ka garanaa shicib weynow anagu baarlamaanka wuxuu waa ogola hadduu kaaga soo celiyo waa ogola labadaa qodob gartaa ayaan cadeynayay oo midii hadda ka cadeynayay wixii ka soo noqdana waynu arki doonaa waxaan leeyahay aynu shuruuciisa u raacno aynu isku ixtiraamno markaynu doodayno cayda nin waru yahay da waru yahayba in laga sii daayo miidiyaha dhaqan gobonimo maaha dhaqankeena muu ahay dhaqan la daawado lagu farxan maaha in la iscaado wax badan baynu sunnahay haddaynu ku dayno gaalada dimuqraadiyadda maraykanka haddaynu raacnayo waxa la midka ah ingiriiska iyo dee waa ku jabaynaa dee iyagu dimuqraadiyaddu waxay gaadhay inay taa 2 nin hays guursadeen
haddaynu tooda ku dayno halkaas inay la gelaysaa bal hadda loo fiirsado waa dimuqraadiya waxa doonaan sameynaya war dib loo fiirsado dadka raacaya dhalinyarada wariba taalantaasaan kale yahay waxaan ku soo gabagabeynayaa Soomaaliland oo warwari maayo dawladda xamar ka dhisan oo aad ogtihiin inta weerar nagu qaaday ilaa maalintii la magacaabay dekada barbara mashruuci oo dekada laga bilaabay waxa isu taagtay dawladda Ciraaqaadka carabta u jareynaa meel bay ka dacweysay waa maxaad u horumaraysaa waxa ku xigtay SDF sanduuqa la oran jiray Special Fund for Somaliland oo European ku isku tageen oo Somaliland mashaariicda laga caawinayo laga siin jiray maamuran jirtay warqad bay qoreen annaga la ictiraafsan yahay waa gobol laga mid ah cunaha la qabanay hadeen diidaanaha gudbinina waxa ku xigtay ECAW isku dayaan diyaaraduna halka soo maray waxa kamid ah dawladda Somaliland soo dhaweysay ama marti qaadaan cilaaqaadka loo jiloonayaa war waxa xuna gacanta ugu jira meega geebayna soo dhaweysay oo soo dhaweysay waxa ku xigay tukaraq dagaalka ay ku qaadeen Soomaaliland gudaheeda ay yiraahdeen sidee u degtaan meel Soomaaliland kamid waxa wax laga naxaa in xisbiga wadani rag kamid ah amaanaan isla taagaan kula dul dhacaan xamar maanta warbato waxa sameysaba amaan naga mudan mise in la iska celiyo loo diyaar garow cadiga koobaad ee waqti ba waxaynu kaga dayanaa dhaqanka farmaajo oo labadii madaxweyne ku xiraayay airport ee maanta xamar ay ka gubanaysa isagoo oon xukumin meesha la yiraahdo fila Soomaaliya uu leeyahay labadii madaxweyne igu xigay xataa dhaqan Soomaaliyeed ma iska dhaaf siyaasadda ka gaalada miyaan ku taasayno maanu raacnaa waxay la tahay meelaha qaar kood aan hubsano oo ayaan ku dhicin cadawgeena dawladkiisa aan ka digtoonaano waxaan ka rajaynayaa ku darayaa aqoonyahanka jaamacadaha dhakhaatiirta injineerada abwaanada dadka maskaxda fikirka badan lahow talada dalka ka qayb qaata haddii kala tacabkiiru khasaar noqonaya taas waa ku baran Soomaaliland waxaan ku hambalyeeyaa ganacsigeeda madax dhaqameedkeeda culimadeeda ardaygeeda haweenkeeda reer miyigeeda kabada ka kalumaysta midnimada iyo difaaca iyo adkaysiga gobonnimadooda iyo qarannimadooda sida aadna ay naftooda u horayaan ayaan aad ugu hambalyeeyaa Soomaaliland ha noolaato midnimo iyo horumar baan ku rajaynayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh